السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu ku qaadan doonaa insha Allahu tacaala mowduuceenan maahmaayo aad u muhiim ah kuwaasoo ay dadkeenii hore adeegsan jireen isla markaana kuweenan iminka jooga ay adeegsadaan maahmaahyadaasoo ay qaarkood ay yihiin qaar aad u caan ah isla markaana aad meelaha qaar ku maqashay kuwa kalena aanad maqal oo aad iminka maqli doonto insha Allahu tacaala haddaba maahmaahdu maaha asal ahaan wax sida gabayada iyo geeraarada iyo heesahaba loo tiriyo laakiin waa murti baxda iyada oo laga shidaal qaadanayo wax markaa dhacaya dadkuna inta badan waxay u adeegsadaan wax u sheeg ay ugu sheegayaan qofkan ay la hadlayaan haddii ay tahay inay qofkan ku ammaanayaan iyo haddii ay tahay inay qofkan u caqli celinayaan oo wax uga digayaanba haddaba maahmaahda waxaad kaga kaaftoomi kartaa halkii aad dhowr bayd oo gabayaad ka akhriyi lahayd ayaad hal maahmaah odhanaysa iyadaana kaa kaafinaysa akhriska gabaygaas oo macnihii iyo murtidii ku jirtay oo dhan way koobsanaysaa haddana way ka dhawaq yartahay oo si yaro sahlan baad u odhan kartaa midda kalena waxa weeyaan maahmaahdu dhan walo bulshada ahba xidhiidh bay la leedahay oo haddii aad dhowr maahmaahyo taqaano waxaad u dhigmataa nin dhowr gabay xifdisan murti ahaan iyo macno ahaanba mar waloo aad maahmaah tidhaahdana hadalkaagu dhigaha dadka ayuu soo jiidanayaan isla markaana si fiican ayay hadalkaaga u dhuuxayaan haddaba intaanaynu mowduuceena gudagelin haddii aad janaalka cusub tahay sabskraibe iyo like saar una sheer garee asxaabtaada cidda aad doonayso inaad la wadaagto muuqaalkan haddaba soomaalidii hore waxa ay ku mahmaahi jirtay ama afeef hore lahow ama adkaysi dambe lahow taasoo ka dhigan haddii aad arrin galayso inaad afeef sii dhigato marka hore aad bilaabayso haddii kaloo aanad sii dhigan bay noqotay cawaaqibta marka dambe ka dhalata u adkayso alla aamin ma iisho iyaduna waxa ay ka dhigan tahay qofka ilaahay ku xidhnaada ilaahay baa wax walba ka caawiyo u fudaydiya abeenso yaryar ma gasho kol hadday abeensaduba abeensa tahay oo ay sun leedahay labada jeerba waxba kaba dhigna inaad iska ilaaliso tayaryar iyo inaad tawaaweyn iska ilaalisaa labadaba inaad iska wada ilaaliso welibana si isku mida weeyaan waayo haddii kale aad u baasunteeda ku dhiman addoonsi cabsi buu ka abuurmaa maahmaahdani waa maahmaah aad u weyn oo qiimo ballaadhanna leh taasoo tibaaxaysa in aanu addoonsi meesha yimaadeen haddaanay cabsi jirin marka uu qofku ka cabsado qofkan addoonsanaya ayuunbuu addoon u noqdaa laakiin inta kale uu iska celin karayo uu iska dhicin karayo weligiina addoon ma noqonayo qofkaasi laakiin wuxuu jab ku jiraa maalintuu isaga ka boqdo qofkaas ee uu isdhiibo isla maalintaasunbuuna addoon noqonaya af wax cunay xisho run ahaantii horta maahmaahdani waa maahmaah aad u ballaadhan isla markaana aan lagu soo koobi karin dhowr sikin macnaha ay leedahay markaa haddaan sida ugu macquulsan ee ugu kooban aan u sheego macnaheegu waxa weeyaan tusaale ahaan haddii nin mas-uulaha ay laba nin talo ula yimaadaan oo labadaa nin ka midii intuu gaar ula yaro baxo uu jeefka gacanta u geliyo oo uu ku idhaahdo hoo xogaagan yar oo arrinkan iga kala tuur markaa hadduu ninka mas-uulkaay uu ka qaato waxa uu siiyey ninkani ogow inay cadaaladdu xaggaa ku dhimanayso oo aanay jirin wax cadaalad la idhaahdaa intaa wixii ka dambeeya waayo ninkan mas-uulka ahi lacagtaa uu cunay awgeed ayaanu qofkan kale uu lacagta ka qaatay ugu odhan karin qaladka adigaa leh maadaama uu lacag ka qaatayna si kasta wuxuu isugu dayayaa inuu ka meermeero arrinkaas adduunyo orod laguma gaadho maahmaahdanina waxay tilmaamaysaa weligaa haddaad adduunyo siaad doonto ugu shaqaysatood waxaad doonto u samayso weligaana kama gaadhsa heer aad ka qanacdo tidhaahdo maanta intaan haysto ayaa igu filan waa kii xadiiskii nebiguna ahaa haddii bini aadanka laba togoo dahaba la siiyo wuxuu damci lahaa in mid kaloo saddexaad loogu daro markaa damaca uu bini aadanku adduunyada ku leeyahay ma dhammaado weligii ammaano kugu raagtay yardaabaad moodaa maahmaahdani waxay caddaynaysaa in qof haddii aad wax ka soo ammaanaysato isla markaana aad ammaanadaa waqti dheer haysato inaad u isticmaalayso ammaanadaa sidii oo aad aduu leedahay markaa intaanay taasi dhicin oo aanay ammaanadu dayacminna waxaad ku dadaashaa mar walba inaad ammaanadaa qofkaygu celiso waqtiga ugu dhow ee aad awoodo af jooga looma adeego maahmaahdanina waxa weeyaan maahmaah aad u qiimo badan oo macno ballaadhan ku fadhida isla mar ahaantaana ay u badan tahay inaad meel ku maqashay iyada oo qof lagu leeyahay amba aad aduu qof ku tidhaahdayba maahmaahdanina waxa ay tibaaxaysaa inaanad qofna afkiisa ku hadal ama aanad u hadal isagoo qofkaasi meesha jooga ee ay tahay inuu qofkaasi lafahaantiisa u hadlo
haddaad is soo qaadqaaddo bay noqotay aayar bale si ka aaminsan iyadoo maahmaahdan la isticmaalayo adigana ceeb baa kaa raaci doonta xaggaas. Waayahay guntii iyo gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeena soo gaadhnay. Fadlan haddii aad kanaalka ku cusub tahay subscribe saar, like tana ha ka ilaabin, una share gara asxaabtaada cidda aad doonaysa in ay ka faa'iidaysto muuqaalkan. Waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.